أديك ورالي حنونك وحيالك كلا محاضرة أنت أديك شخصيا أبا waxaan dareemay hadda markii shago marka la xataa waxa jirta shirkad oo Mareykanka uu leeyahay oo Amazon aan ka shaqo bilaabay marka naagtu waxay samaysay marka isku qiimo gareys marka qofka isku qiimo gareeyo xataa dugada laga jiro baashi way qasbaysaa marka isha qofka ii jeedinaysaa marka waxaan ku dareemay naagta managerka waxay Ganes marka naag oo Congolese oo isha ayadana dadka alaabtiskan garanay ahayd ha khayrisay marka saxida defosim علشان way qasbayaan marka baashi waxa waaye qofka isku qiimo gareeyo kala dugada laga jiro xataa way qasbaysaa علشان aniga dhanbo qofkii ugu qasbay marka waa sicilinahay marka dibkaas oo kale leedahay hay waxay leedahay hadda waxa ay sheeg Faransiga soo ceeri waxay aad baaj to kale markii la dhaho dadka inaan markii inta u fahmeen markii baaj la dhaho kala qof la injiyan noqonaya hay maskaxdan waxay u soo dirayaan baasha ma wax la hadlay cod ma maqlaysa may telefoonada device ku tahay marka dadka ay dhahayaan markay baaj dhahaan oo kale to علشان اوتوماتيك علشان باشي يشق ما دام علمي اللي هو برنا جامعات باشي مركب خفك باج وده هو كليته وحنا قلنا غفل عنجي عمل عندها بناك إيمانك مركب قدم بنا وحسمينا يعني مسك هذا عادي باشي وحي يصدرين علشان هذا العض عادي كيميكو مسك هذا يصدرينها مركب وحسا عبسي جلسوا إلا كويلا تمبري وحنكو عرسنا انت أنا الصومالي سؤالين waxaan ku xarasnaa maamo oo Soomaali ilaa khayr hasiye oo Paris degan guri ee lahaydaan waxaan ku xarasnaa kooy la tambri maamada san garab siisay ilaa khayr hasiye marka oo ku soo kala booday waxa waaye sheeg marka hadda shirkad oo kale taasoo kale gabadha markii isku qiimo gareysay naagtu way qaylisay waxay dhahday way qasbayaan markaas ogaaday علشان baash yaa وات هاي ضد بان لها اللي شدنا قرعنا هي انا اشون دحقله marka waxay sameynaysaa baashi way qasbaysaa qofka علشان qasab ahaan inaan qofka aan qalad sameey ahaan marka aan qof aan iska ahaa ilaahay wuxuu ceymiyay qof iska nabadeed aan marka waa sicilnaa marka meesh waagu hor ma garan jirin cilada halkay ka socoto waan la yaabanaa laakiin markii aan dambe ayaan ogaaday inay ishag oo xataa Oslanderka ishag xafiiskiisa anoo markaas intuu sharciga soo dhicin ahayd warqad soo cusboonaysanay naag oo Jarmal naag ninka meesha oo ka shaqeynaa u sheegayso علشان uu fahansan yahay in wax lagu bartay ahaan oo علشان lagu cilmi lagu bartay jaamacad lagu dhigtay uu fahansan yahay ayadoo dhayso xataa maqlay okay su'aal baan qabaa markii waxa yaaladan oo maxaa lagu dhahaa la sameeyay experience kan la sameeyay experiment kan la sameeyay dadka waa loo sheegaa waxa la dhahaa dad baa lacag lagu siiyaa waxa la dhahaa maka qayb qaadanaysa aniga inuu wax intuu ku qariyo qardab ku siinay ilaa wadan sharci iyo nidaam iyo dawlad iyo iska dambays iyo kuwa dhaqaatirinta kuwa ka hoos shaqeeya kuwa TV-ga kuwa ka hoos shaqeeya booliska balaaya ka daba shaqeeyay wadanka idinku waxa umalaysiin in qurbo la iska wada joogo qolaba anaga Swedish ka ubdiro garaaskan iyo balaaye iyo waxba ka daba shaqeey idaacada meelaha jooga oo taagan yaa khalda yaa wax sameeyay yaa maanta khalad galay marka adiga ma lagu sheegin miya Jarmanka ma ku sheegin miya ma ku dhihin miya qof igala hadla ma jirto qof ilaahay unta igala hadla ma jirto okay isbitaalka marka waxa dareentay isbitaalka ma tagtay ma tiraahday waxaas dareemaya sabab oo waxaas ma igu sameeyeen ilaa xuquuq leedahay wadanka Jarmanka degan tahay aba ishag dibka wuxuu jiraa because baalka maadaama ayagu wax ugu baranayeen qof xafiiska markan qof u tago aan isdhaw amu ku caawiya baashi marka waxay saarayaan because markii baashi kacdo qof walbo iga agdhow qofka lambarka haya soo waayo because wuxuu u sheegaysaa in xaalad degdeg ku jirto kale marka adigii caawinaadan kugu imaaday markii sayn qaldan uu ku soo dhaco familkaaga soo wacaan oo because aniga dhanba waxa laga dhigay sida qof corona qabaan 3 mitir ka dheero ما يكون سك أنا قاعد جيم عندنا يا سك وأنا واحد فهم الربع ماكو فهمين أنا قاعد دولة الجرمن كأه إسبتالك لو وقع أنا قاعد مركا أنا قاعد إسبتالك إتماد أنا ما واحد عايم مسألة حقوق عايم فهم يشيلعي ما إسبتالك ما هو علشان تدو حاجة رشاش الواكر مركا قفك حفيز كيس أنت جو because أنا كون فكر ماشي أصعد
اسفهنا ترتيب اسكو فهنا ترتيب يقول هذا حفيدك ودعوونيسي انيغي فدhiyo marka ani ma wax dareemay mas'ala wax dareemaysid aniga marka hadda ku soo socdo marka maskaxdayda ku soo dhacday inaan ku soo socdo isla markaa automatic baasha moogtay wax la tijaabinay waay message aad helaysa taleefankaaga inaan ku soo socdo marka because waxaan ku ogaaday dukaan oo waxaa jirtay oo isheeg oo alaab maxaa la dhahaa alaabahan isheeg mashiinta oo cabitaanada iyo waxyaalahaas alaabta oo guriga gado marka mashiinta cabitaanka iga halawday waa soo baxay magaalada centerka imaaday anoo iska socdo anoo marka hore budgetkayga ma ahayn inaan mashiinta soo gato ayaa marka dukaanka anoo agmar ayaan ku leexday ninka marka wuxuu sheegayaa gabadha baasha calashan iimayl sheegin inuu calashan noo soo socdo ahaan marka waxaan ahay qof automatic meesha u socdaba baasha ay sii sheegayso oo calashan experiment test lagu samaysanayo marka okay go ahead marka ka soo qaatay oo kale ku imaadeen ku dacwoodaan rasmo baasha marka la kicinaya calashan ayaga marka remote control ahaan ayaga bay haystaan samo qof ayaga waa duubanaya baasha marka kacdo aniga xulaysan dareemayaa inta xabadka iyo laakiin adiga message waxa ku soo qofkii lambarka haya ku soo wacayo sida anigoo isha wax kugu sameyn raba qalad ahaan qof xanuunsan kula jooga ahaan marka arrinta si lagu daboolo qof xanuunsan laga dhigo maadaama aniga ligu cashir bartay laakiin waxaa la rabaa in arrinta la daboolo laga dhigo qof xanuunsan ahaan oo been marka okay halka ii istaag bahash magaceeda ma taqaanaa wallahi aniga jipun baan iska dhahaa magaceeda ma garanayo okay isu waxaa daawanaysa 534 qof waxaan ka codsanayaa waxaa gogla garaysiin sanadka baasha lagu xiri ii sheeg aba sanadka waxay 2019 maxaa tiraa 83 qof oo maxaa lagu dhahaa experiment 183 qof aniga markii lagu daro 184 waay 180 Jarmanka maxaa lagu dhahaa ii sheeg experiment waxa lagu xiri ii gogla garay goglaha uu keenaya Jarmanka waa keenayaan okay hadda ugu xiranta marka wali aba wali way ugu xirantay because hadda waxa dhacday halkan aan joogo Kenya waxaa dhacday dhalinyaran tabliiq isku raacnay marka dhalinyarta anagoo kaftameyno marka mid hadal kaftan inuu dhowr markaas kii raaco hadeen booliska ku sheegay calashan baasha ku xirno way sarbeebaya booliska ku sheegay ahaan waxaas oo kala kor kaftamay marka qof waxaan ahay asxaab aan la kaftami karin calashan isfahan ayaga ugu cayn baasha ugu cayn boolis ah oh okay haye calashan dhalinyaro tabliiqan saraacnay marka dhalinyaro dariska marka anagoo meel wada fadhino wada sheekaysanayno mid inuu ila kaftamo damcay kii kala dhaca hadin ergas calashan booliska ku sheegay baasha marka dadka qaar waxay leeyihiin booliska ku sheegay marka qof waxaan noqday go'doon because ani 2020 markii arrintan aan isku ogaaday ehelkaygaan jaray asxaabteydaan jaray only qofka waxaan ku fiicnaa qofkan saaxiibahan mise qofka waa u sheegay online oo aniga qof afduubana ahay oo calashan lagu xadgudbay waxaan dhahay nolosheeda private ma aho qofkii raali ku ah welcome qofkan raali ku ahayna calashan salaam marka dadka dhan waxaan noqday qof go'doon okay marka hadda ani adina wada hadlay meel kalma laga dhageysanaa ay leedahay because baashi wali ugu xiranta wax iga saaray mala soo ma baa okay marka hadda aniga hadalka aan ku wada hadlay meel kalma laga dhageysanaya wallahi horta marba aniga dadka xogaa ilaahay wuxuu ugu ceymiyey dadkan baan ka maqlaa arrimaha halkay marayaan because waxaa dhacday in kaamiradeeda baasha la xiray marka Afrika imaaday dadkan baan ka maqlay dadkiina qosolka soo qoray qosolka hay maxay walaalkay yaba waa ku maqlaa waxaan ku dhahay okay isbitaalka ma tagtay Jarmanka والله جرمال كسبيتال كلا أنا أمين واي because حنسكو داي حرونت عدالة دينا أنتجو House of Justice مرة كلا كي واحد يقبتون واي because أنا وحنا ميمدو حيات because وحنا سده أما ديب كلو كوي الجوجا سيا يا okay waxaan ku weydiiyay marka sug hadda ma qasana hadda waxaan joogaa muddo hal sano okay sharci ma ku leedahay Jarmanka taas ay muhiim sharciga hadda anoo Faransiiska joogo isoo dhacay lawyer email isoo diray oo warqadii waan hayaa
بس هلكا نوفمبر اوكي واحد هو يدير انت سي مهم اوكي ان waxaan ku weydiinayaa oo muhiim ah marka Soomaaliya marka soo baxays ila qof waxa tiraahday sharciga haduu soo dhaca tiraahday adiga waa ka soo tagtay marka laakiin Franciscan ka horeeyay Francisca iga horeeyay sharciga Francisca horeeyay شو president please life ku jira ina adir macaani I love you gabarina ay duu ahay waayo hay iwad شو the TikTok gamaan aye midka Francisca ay soo hordhacay kanna marka gadaal dambe ka soo dhacay because anoo Francisca jooga xataa emailkii soo dhacay oo calashan lawyer-ku ii soo diray emailkiga aad ma passport ku soo aad ma sharciga ku soo aad ma aad tagtay dawladda iyo tagtay la tiraahday ما هي باسبور سومالي استعماله. اوكي سومالي دولة فرنسيسك ما دين الترحيل لكن باسبور سومالي أنا كوي مال وعن كسر دقة السبب كوي تمبرين جوي كذا بعد السبب مقدسين تاعي. اوكي مركز سؤالك كوي دينا اوكي بالك هاد قاسن وكوكو حريه هاي أبا إلا 2019 مركز وحنا قلنا 19 20 21 22 23 24 6 years. اوكي waxaan ku weydiinaa oo kala hadaayay marka wada hadal xitira codad baan maqlaa hadallada aan maqlayso marka inteed ka ma dhagahaaga ka maqlaysaa baash meesha baash intee horta baash intee ka dareemaysaa maxamadkay ku xiranta macuunahay ku jirtaa ma garabkay ku jirtaa halkaas ka aba meelahan ma liga xira ma garanayo laakiin voice halkaas caadi toos iga soo dhacaya. اوكي فويس كم محوي محا مخليسا because waxa waa ishig maxal dhaha aniga adiga wada hadleen oo kaleeto oo qof calashan maxal dhaha qof wax ka sheegto oo kaleeto markaas caadi waxay soo dhacayso dadka nabadgeliyo oo kale dhowr jeer saas oo kaleeto ma jeclaan dadka wax ka sheeg laakiin dadka asxaabta qaar qof ayaga wax ka sheegay markaas baasha ma Soomaaliya ku hadlay mise German ma qof walba codku igu soo duuba ahaan ما يفهمين أسفهنا بعشان واحد هذه وحواي إكسبيرمنت أو لو جوسو سمي جرمن كأو لو بروبينا هاي سو ميدا قصة كذا let me finish واحد هذه بعشان إكسبيرمنت أو اللي سمينا وايه أو لو بروبينا بلو أدينك إن لا كنترول كلا ودمع وإكرتها مدي الدني أوكي اوكي way dhacday markay dhacday dadka wax controlaya af Soomaali kuma yaqaana waa German ma dibka waxa keentay aniga rulkooda oo gasam way marka waxa ka dhigeen public oo qof walba telefonkiisa laakiin waxa way baasha anigu xiran baa dibka okay hay go ahead waxa dhacday safaaradda oo Mareykanka aan dacwo geeyay marka warqado oo dokumentiyo aan ku soo diri karaa warqadaas inta soo koobi karay aan WhatsApp ku soo diri karaa safaaradda Mareykanka warqado geeyay marka ayagan tijaabo u sameeyeen oo wixii alashan maadaama u kurgalayeen bas naagta marka telefoon ku hadlaysay marka waxay dhahday maadaama 2 sano ahaan alashan ninkan arintan uu la diban yahay ay maadaama 2 sano ka warqabin Soomaa 2 years oo alashan justice raadinaya ahaan waa naagta safaaradda ka shaqeynayso marka safaaradda Mareykanka waan ku kala dhaafintaan ka hortagin safaaradda oo Canada warqada ayadana geenay marka naag oo cadaan ah isku kay ma gareysay baash marka baash way qasbaysaa marka wixii aan raali ka marka ugu qasbta aan waas celinaya bas marka ninkii oo meesha jooga oo madowga wardiyaha ee uu sheegtay marka wuxuu dhahay anaga noomu socon because already waa ogyihiin baan ayaga aan socon meel kale u socda laakiin service uu helay laakiin hadda ma علشان مركز already باشا كلا سعودين بو إنا budget كيجا ها سفارة أمريكا كم سعودي لكن عيقة برقدها أنا نسي جيناي بس مركز نيكي قبل كلام مدة وشيء جاي ساس ده هنا وده مركز سيرفس وهنا يا لكن budget كي سمعه إنه علشان محل ده أرنتي سمعهن إنه أنت إماضو لكن سفارة أمريكا كم سعودها بس سفارة أمريكا مركز تجا عيقة نصوص قالته تجابي وسمين waxaan tagay safaaradda Ingiriiska ayadan warqadaan geeyay bas naag cadaan soo kacday kursi iga dambeeyay soo fariisatay marka halkaas maskaxda wax kuleel badan iga shiday oo baasha marka
waxay dhahday I did my job calashan shaqadeeda waan qabtay marka tijaabo ahaan ay rabtay ayada bes ka dambo marka waa soo baxay waxaan ku soo laabtay magaaladii aan degnaa laba ber kadib safaaradda oo ingiriiska soo wacday email ay qoreen marka emailka meeshan ku qoray warqadihii aan waayay marka okay marka waxa waaye arrin labada ogi yaaba arrin labada ogi waay laakiin caawinaad la'aan ay haysto okay dhegeyso marka su'aal baan ku weydiinaya gabarba waxay ku soo qoraysaa dadka su'aaladooda aniga oo ka jawaab oo ku weydiinaya dadka oo la joogtay adima u sheegaysa bahala igu xiran ma dhaysa qof markuu kula kulmo ma waxa dhaysa waxba igu xiran bikiya fursirtaada aniga meel laga maqlooya ha because markaan asxaabta aan sheegaan la sheekeysanahay qof walba waa u sheegay runta waxaan dhahaa aniga waxaan ahay qof wax ku xiran yahay marka nolosheeda public waaye waxaan dhahaa arrimaha igala hadlin okay because dulmiga aniga go'aankayga waxay dulmiga aniga inuu igu ekaado laakiin qof kale uu saameyn okay su'aalaha weydiina safaaradda Mareykanka maxaa ka raadisay dacwa safaaradda Mareykanka waxaan ka raadiyay waxay ahayd saan cadaalad ku heli lahaa because waxaan si liiga fur lahaa because wallahi marba ila hadleen waxay ugu dhaheen xalash sharci oo arrintan GB-ga loo qosayo nooma degsana Mareykanka marka xalashan marna waxay ugu dhaheen kaar oo waxaa soo samaystaa qaxooti oo xalashan markaas UN-ta aan la soo xiriirto okay halka ay istaan waxaa daawanaysa 800 oo Soomaali almost dhaqaatirin baa ku jirta dad wax bartaa ku jirta dad cilmi lahaa ku jira dad aniga caqli badan iga cilmi badan baa ku jira dad mutacalimiina ku jira wax meel qaba ku jira culimadii baa la daawanaysa madaxda qaranka Soomaali oo dhan baa ku daawanaysa caawa marka ani waxaan rabaa 2019 ma dhaad baashan lagu xiray okay waxaad ii google garaysiin oo waxaad ii rabtiin ii soo baartaan inta ila hadla anboo google telefonkayga kale inko jaki doogo sida give me other man so waxaan google garaynaa waxaad ii sheegtaa sanadkii lagu xiray bahashan 2019 so google ka hangana waxaa tiri waxaa lagu xiray 184 oo aniga aan ku jiro midda kale midaan ka ilaawee yar waxaa jira Nigerian oo isagana isla shaqeynayna isla shirkadaas bal Soomaali kana soo baara haye yar Nigerian isla shaqeynayna ma ay gacmay halkaas yeelaan telefoon ma haye idinka soo baara bal in haye yar Nigerian isla shaqeynayna isagana uu ii sheegay oo wuxuu dhahay in adeerkiis ay arrintan lagu xiray because wuxuu dhahay xataa ii sheegay oo jaamacad ka dhigta waa Jarmalka wax walba ku hadlo waxar iisu friendship baa la dhahay friendship baa la dhahaa friendship friendship confuse halda friendship confuse halashan maskaxsi loo confuse garay anigu googlaan ka raadiyay marka friendship confuse aan oo qofka maskaxdiisa la confuse garayna ma la gelin karaa marka qofka lagu xirayaa marka maskaxdaada waxa la rabaa waa la qabsanaya adiga dhan waxa isku dayaa in lagu confuse gareeyo oo sida waxar isu Soomaalidan weydiina anigu dhakhtar ma ihi I'm not a doctor waa la gelin karaa ma dadka waa la qalaa madaxa la gelinayaa okay I believe you okay so marka yarka Nigerian isla shaqeynayna wuxuu ii sheegay saas oo kaleeto yar cilmi adeeriyiin oo Jarmalka jaamacad ku dhigtay in lagu xiray oo because wuxuu dhahay wax walba oo telefonkiisa uu ku hadlo wax walba u soo dhaco automatic telefonkeyga aan ka helaayo dhahay marka yar oo adeerkiisa lagu sameeyay yar isla shaqeynayna afkiisa iga sheegay nin isla shaqeynaysan oo Nigerian walaalkiisa saa lagu sameeyay yar cilmi adeeriyiin soo ii sheegay wuxuu ugu dhahay wax walba oo telefonkiisa ku soo dhaco mise wax walba uu ku hadlo automatic aan telefonkeyga uga helaa marka calashaan yarkaas uu kula dhiban yahay haye waxaa jirtay wiilal oo magaalada Jarmalka aan isku aragnay ayagana waxay ii sheegeen yar oo Jarmalka magaalo ka mid ah taasoo kale oo Soomaali ah in lagu asagana lagu xiray hal su'aalan ku weydiinaa marka hal su'aalan ku weydiinayaa aniga bahasha markay kugu xiran tahay aniga waxaad tiraahday haddaan ku fahmin ninka Jarmanka ah walaalkiisa lagu xiray okay walaalkiisa Nigerian
Nigerian walaalkiisa lagu xiray marka okay waa laba nin oo walaala ah isfahanaya kana lagu xirayaa in adeerkiis walaal soo ku dhahay my cousin u dhahay weer convince baan noqday tartiib ku hadal anigu waxaan maskaxdayda way ka weyntaa tartiib waxa uu fahansiin af Soomaaliga inuu igu yar yahay hal ila jaabin si degdeg u fahansiin okay waxaan rabaa inaan fahmo ninka Nigerian-ka ah walaalkiis ayaa wax lagu xiray bahasha adiga ugu xiran ayaa lagu xiray Soomaali afslina waxaan serious waaye ay ugu qoslina ilka idin taala qosla iska daay marka Soomaali waa jeclahay waa dadkayga iska daa marka waxa waaye dad ninka lagu xiray ee Nigerian-ka walaalkii waa ama qaraabay yihiin maaho صح ninkan kala marka mobilka marka yaa mobilka wax ka arkay ma saaxiibkii ka arkay ma walaalkii baa ka arkay midkan qaraabada ay yihiin marka oo ii sheegay ay ugu dhahay marka wuxuu teleefankeyga aan noloshiisa dhanba wuxuu ku hadlo wuxuu u soo dhaco wax walbaba halkaas aan kala socdaa teleefankeyga